qurux badan baa lagu soo dhisay dadka aan noos istan ka soo galay midiyada ah waxay ku soo galayeen wax ka qurux badan baa lagu soo dhisay hadduu alla ku calfana kasii badan baad dhisan doontaa oo adi sababtay bahanta waxaad haba koogin baan 15 kun oo kura ka siidee 25 kun oo kura la keentay inaad 24 ka wayso waa adiga dadnimada inta waa horudhaci aan dhaadhaco waxaa la long way to go hol baa loo horan sacabka aan yaraysano qaylida aan yarayno aan isdoorano maxamed Ismail labadii wiil oo kale weli gadaa ku jiraan dhufaysa ku jiraan soo maxamed Ismail ma eegana yaa laga rabaa markaan arkay aad aan u farxay dadkan meesha la isku imaaday ee intii balaankii hore sameysayna ay maqan tahay ama dambiga lagu sheegay na ay ka maqan yihiin meeshii in ka badan ay soo fariisatay wax lagu faani karo way in islaam oo islaam inta la eg hele inuu guuleysan waa xaq akalo idin sheegi waxaan ku faray abtiyo abul karta abtigiisa leh anagoo la taagan baa soo dhisnay anagoo aan la taagnin maxaad malayn waxaan ku dhigi doono كمان رهي وكا هذا بدر ما قبل غير الكلام ما قل ودل هذا الكي قابل بركة بدر مركب وحان ربا إرجع سوغانا إيران إلهه وصل نوقبتان كوغا أنغا كوني مركلنا استاك عمر أرمها برشدو آقا صوت وتر آدو وقبتو كو أماني هاي أقول إيا رجدي أرحم واليبو إسكول جيدو أقل أودسه أرك سمع أبالك آقا ولا قدي أبيه للي أصل كيسي هراء أهل خيرها وحي هرنا عطاي أنت صوص عطو جدك كسو هيسا عمر سو دو جماعة فرن كسو دو قلبي فرن كسو دو وحقبت كاجي كسو دو adiga oo maaragtay odayaasha indhaha aan haynin hadaan u daabaanahay indhaha aan haynin iyo habraha ama dadka masiibadu weerartay ninka ilayska tusay baa tahay oo mashruuciisu ninka waxa tahay ummadda waraabiyay wax qabadkaagi ku soo dhawow codkaagi iyo aqoontaada ku soo dhawow sida aad dulqaad ku leedahay ku soo dhawow sida dadku ku rabaan ku soo dhawow Dr. Omar markaan shalay dooranaynay muslimiin baan ahayn doorashadiisu kuma inaan gaaloobin maanta haddaan dooranno miyaan gaaloobaynaa ma gaaloobayno waynu garanaynaa waayna sheekh maxamed waxaan rabaa soomaalida waxay tidhaahdaa barbarkay ka baxday waa bakay la galeen nin walowba barbarkaaga annaga reer Soomaaliga barbarkayaga maya 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 waa Omar 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 haddaanu shacab nahay iyo haddaan dawlad nahay annagu waa Omar 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 baan hadda waxaadna ogaataan dhalashada iyo walaalnimada iyo qiimaha uu idinka idin galay baan idinku raacaynaa mooyeen Omar intuu soo gudbay annaga Soomaaliya nooguma iman laakiin kuwii hore oo soo gali jirayna waan ognahay kuwan isagana waan ognahay aqal baynu leenahay waxbaan aragnaa maxamed suweerow horta hambalyo waa guuleysanaynaa inteena hadda guriga soo gashayna waxaan wada ognahay inuu isku ognahay taageero Omar MBga mahad weyn buu naga sheeganayaa sida aan u imaanay imaashada aan imaanayna markaan aniga iska soo qaado asaga la adii umaan u imaaday inta khayrka wadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha guuleeyo midnimadeena ilaahay subxaanahu wa tacaala ha adkeeyo walaalayaal waxaad ogaataan ujeedadii iyo hadafkii aan lahayn
boqolkiiba 60 ama 70 waa inoo suura galay insha Allah taala 30 kuna waa inoo suura galayaan idan ilaahay waxa weeyaan bini aadamku markay wax rabaan waxa la rabaa inay moraal iyo niyo iyo cazimo iyo go'aan ay leeyihiin innaguna waan isognahay go'aankeenu meel buu ka go'an yahay idan ilaahay go'aankeenana waan gaaraynaa midnimada ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo adkeeyo qalbigana hal la furo bil rabadaan baan joognaa maynaan isugu imanin macsi iyo in dad la dulmiyo iyo in dad la xumeeyo waxaan isugu imanay ka shaqaynta islaax bayna naas oo ah qoyskeena maxamed subeer hal family baynu nahay waxa weeyaan waxa yar ee madmadowga ee jira ee nimankii guddiga ahaa ay keeneen sidaan ku saari lahayn ayaan isugu imanay ee wax lagu wada qanacsan yahay aanu keeni lahayn marka waxay la tahay insha Allah taala niyada khayr loo sheego waana guuleysanayna idin ilaahay wabillahi tawfiiq laba qodob oo yar baan rabaa inaan ka hadlo mid waa maxamed subeer midna waa Mr. Omar maxamed subeer baan ku horeynayaa maxamed subeerow anigu horta waxaan imid dalkan 91 nin adeerkaya waa Cabdi Xuseen Xasan la oran jiray waa bahay walaalkiya yaa wada socon jiray dadku si qurux badan bay isu salaamayaan markuu qofku dhaqaaqana dhabarka carabka lagaga fiiqi kii dhaqaaqay adeerkay baan weydiiyo waxaan idhaa abow sidan dadkii sida fiican isu salaamayay ee markay kala dhaqaaqaan carabka isku fiiqaya macnaha baliga dhaadhici ilaa aad muddo joogto macnaha aad baran karta ma ahee sidaa kula soco uu yidhi maxamed subeerow hadalkiinu wuu fiican yahay laakiin gadaal yaynaa carabka Omar kaga fiiqin maxamed subeer intaasaan leeyahay Omarna waxaan leeyahay samir iyo dulqaad baa laga rabaa wax kasta oo ku soo mara samir iyo dulqaad baa laga rabaa markaan saa ku leehayna kuguma aanan baran ama la iguma ka sheegin samir iyo dulqaad la'aan la iguma ka sheegin laakiin qofka bini aadamka semberi wanaagga in la isfaro waa wax wanaagsan adigana waxaan kuula dardaarmayaa samir iyo dulqaad waad maasantiin maxamed subeerow farxad aad u weyn iyo reen ayay noo tahay maanta meesha aan fadhina shirkii noogula yeeray oo maxamed subeer uu u yeeray suldaanka iyo MB-ga waan ayidnay waan imaanay dadkan meesha hadda iskugu imaaday xaqiiqatan waxay og yihiin maxamed subeer inay yihiin dadkii MB-ga taageerayaashiisa ahaa muxushmuha Omar dadka taageersanayeen shirkana way ka muuqatay markaan fadhinina way muuqatay wayna cadeed arrintaas waa guul weyn oo aan gaarnay wixii noo dhiman insha Allah si fiican aan ku gaari doonaa waxaan marka aniga aad ugu faraxsanahay dadka cadadka imaaday ee 3 bari haddana ayagoon kala tegin nala joogeen noo samreen waad ajiibteen dalabkii haddii ilaahay yiraahdo iniga yimid suldaan maxamed suldaan cabdi ogle iyo MB muxushmuha Dr. Omar waad ajiibteen aad baad noo sharafteen iyo annaga oo ah dhaqankii anigoo hadda ku hadlahaya afka uwaasyada maxamed subeer oo dhanba ku hadlahaya maxaa yeelay mar haddii aan soo istaagay magac uwaasna la igu yeedhay waa in aan matalahayo uwaasyada maxamed subeer oo dhan inta jilib ee maxamed subeer u yahay Kenya waxaan 350 kun oo lacag ah oo qaado waxaa jirta aan dadku waraabinay oo ku waraabinayna waa badan waxaa jirta oo kale wax qabad markii laga hadlo in badan ilaa ceelashii u suray markaan aniga u xisaabay asaga in badan dalka qaarkiisa ma garanaye ilaa 35 ceelan garanaa asaga u suray oo dadka ku baxay waxaa jirta oo kale waan soo manahay been ma sheegay 3 jeer ayaan gaari ka raray raashin ah
oo raashinka xoolaha la siiyo laga bixinayo wajaar waxaa waaye inaan iska hadalno oo maaragta hebelaa fiican iyo hebelaa xun maaha meesha kuma jirto waxaa jirta qofka muxuu qabtay qofka bini aadamkana ma qabani karo intan oo qof oo shakhsi inuu wax u siiyo wixii muhiimka ah in la qabto sida daawada iskuullada ceelasha nolosha kale oo guud aniga ma badinaya hadalkaaga waxaan idin leeyahay oo maar aan doorano aan qaadno danta maxamed subeer iyo maslaxada maxamed subeer inay maaragtay aruuriyaan oo meel isugu keenaan waxa weeye maaragtay waad mahadsantihiin dhammaantiinna waana salaamantihiin meel kastood ka timaadeen iyo qof walba darajada uu ku fadhiyo ayuu ku salaaman yahay waxa weeyaan maxamed subeer waxa weeye waa walaal mid weeye midnimadiisana waxa weeye in qof kasta uu ka shaqeeyo waxay isagay dantiisa tahay maxamed subeer hamidoobo waa midaysan yahay insha allah waxa ku jiray kalena in ilaahay ka bixiyaan ilaahay ka baryaynaa bil ramadaan baan joognaa dad islaamna waa nahay faatixada hala maro ilaahay midnimadii maxamed subeer insha allah in saddexda maalmood u fadhinay nin waliba ku hadlay in ilaahay ka dhabeeyo oo ilaahay mideeyo oo qalbtooda ilaahay isu hagaajiyo faatixada hala maro maxamed subeer wuu tashaday go'aan cad buu gaaray tala midaysan buu gaaray wuxuu isla doorbiday maxamed subeer in taladiisa ay socoto in wanaagga maxamed subeer bato in talada maxamed subeer meel gaarto in tala lagu tashado wanaag ka soo baxo inaynu helno bacdel intaa taladaa iyada way naga maqneed meelo kale inooga maqneed haddii talada ilaahay inagu waafajiye alxamdu alshukru ilaahay aan ku maadino marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad taa waa intaa waxaa kaloo noo dheer intaa oo aan isla qaadanay in bacda ramadaan talada maxamed subeer u taalo way weyn tahay la isla gorfeeyo taladaasna uu ka soo baxo wanaag iyo ehelnimo iyo dhalasho wax nagu mideeyana aanu halkaa nooga yimaado waa arrin saxa uu maxamed isla qaatay aanan wada ogol lahay magan alla ma dhahayno wuxuu qabtay waajibkiisu gute abaalka annaga uga horreyne kuuraha annaga ku subne xaqulaa gud inta dambe inuu dhammaystiran waafaqada maxamed subeer waa muqadis waanan u imaanay maantana annagoo faraxsan aan baxaynaa annagoo faraxsan ayaan baxaynaa because wixii aan doonayna waan helnay